Bahashan aad halkan ka daawanayso waxa la yidhaahdaa quduro ee uu masku doonayo inuu cuno. Masku sidaynu wada ogsoonnahay wuxuu jecel yahay xayawaanada yaryar ee sida mulacyada, haddii badankeeda leeyahay waxyaabaha la midkaa inuu ugaadhsado oo uu cuno. Haddaba maskani iminka waxa uu isku dayey bahal khatar ah oo la yidhaahdo quduro. Quduradu mulaca iyo waxay u eg tahay bahalaha la midka ah ama aashabadhe ha noqoto ama jirjiroola ha noqoto xayawaanada ku dhadhow ee beerka ku socday afarta adin leh ayay ka mid tahay. Bahasha qudurada waxa la yidhi waxa weeyaan aad u mas badan, u sun badan oo maskaba ka sun badan. Waxa la yidhi masku markaa wuu ka baqaa, ma ugaadhsado. Sidoo kale waxaa la sheegaa masku inuu yahay xawayaan intelligent conditionkiisu aanu fiicnayn oo aad looga garaad badan yahay. Markaa bahashan kama yaqaano xawayaanka ee markuu siduu mulac ugu haysto ayuunbaa hadduu ku soo baxo oo uu qabto oo aanu cunin uu iska dhigu garta inay iyadii tahay wuu indhabeelaa baa la yidhi. Haddii uu intuu qabta liqana wuu ku dhintaa. Waa laba daran mid dooro. Markaa bahashaasi accident ayuu ula kulmaaya inta badan ma jecla inuu ugaadhsado. Haddaba Soomaalidu waa indheergarad siiba abwaanadii hore. Ninkii abwaanka ahaa ee Soomaaliyeed wuxuu yidhi gabay buu arrinta ku sheegay. Wuxuu yidhi maskii qoorta dheeraa wuxuu qaamudkii galay markuu qaatay qudurada qabayoo ma dhigi karo qaadayoo ma liqi karo. Yacnii waa suugaan ku tusaysa Soomaalidu inay indheergarad tahay oo xitaa ay yihiin dad xawayaanada ka warhaya iyo qaabkay u noolyihiin oo scientisti ah ayay ku tusaysaa maasadani. Abwaanka Allah u naxariisto dhammaantiina waan salaamaya.